wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa 16 bisha tobnaad sanadka 2022 iyo warbixin ideeda wadata waa qalankii aqoon-yahan Nuurileeya waxa soo gudbinaya Yuusuf Saxardiid ugu horeyn magaca maqaalkani waa Suusle iyo ICC hadaba waa kuma Abwaan Suusle magacaygu waa Yuusuf Maxamed Cabdullaahi Abwaan Suuslena waa la yaqaanay laakiin xaqu-dirir baa la bedelay oo insa la ogaaday sida aad maqasheen Abwaan Yuusuf Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Suusle waxa uu astaan hiraysa u yahay halgankii qadiyadeed iyo manhaj sooyaareedka quman ee aragtida bulshada SSC iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa indheergarad xeel dheerid dareen taariikheed iyo wacyi koranba leh oo yaqaan cidii uu yahay kuna baraarugsan runta dunida waxa uu taagnaa badankii noloshiisa badbaadinta jiritaanka haybtiisa iyo haybadiisa iyo hantidiisa waa jiheeyo ummadeed oo ka weeciyo warmaqabtada wadooyinka hadimada kuna duwa haluusiga baraaraha wuxuu kala dagaalamay dadkiisa aragtiyaha jiritaankooda halista ku ah wuxuuna uga digay in birtii lagu gowraci lahaa lagu raarto dagaalkiisu wuxuu daaran yahay badbaadinta jiritaanka haybtiisa daaradnimo iyo haybta Soomaalida wuxuu weeyay oo takoori aragtiyaha liita ee ay faafiyaan qabiilka Soomaaliland la baxay ee door kuwaas oo jeclaaday inay dalkii jamhuuriyadda Soomaaliya maqas ku goostaan kadib markii ay jaga mushahar ka qaban waayeen dowladda Soomaaliya yaraantay awgeed sidaasna ku baabi'iyay ayaha ummadda Soomaaliyeed sidoo kale qabiilo iyaga la mid ah ku yiri dhulkiina ayuhiis gacanteeda ayuu ka go'aa ee hadda uga shahiid inaanu sida xoolaha idinku talin deganaada haddii kalena dhulkiina Ingiriis oo aanu ku aftirsanno baanu ka dhaxlay in laga guuro dood walba oo ay la yimaadeen isaga ayaa si fudud u bariyay qof walba oo raba inuu ogaado awood darrida aragtidooda waa inuu suugaanta Abwaan Suusle darsaa oo fahmaa isagoo oo aan duroorey ee ku daadagaya macnaha xaqa ah ee ugu dhintay xaqu-dirir isagoo oo miirinaya waa badweyne in yar oo korka xaadis ah aynu ku dalmarno aragtiyihiisa ku aadan midnimada go'aansutaaga xuduudka dabadhilifka isxambaarka waqooyinimada iyo waxaan la yiraahdo arti waqooyi colaadda isirka iyo waxyaabihii la halmaala kow midnimada dalka Soomaaliya xilligii xorriyadda la raadinayay 1950 waxa xornimadooda la sii go'aamiyay laba qaybood oo dhulkii Soomaaliyeed ka mid ah waa British Somaliland Protectorate wixii loo oran jiray ama maxkamiyadda Ingiriiska iyo Italian Somaliland wasxayada Talyaaniga waxa loogu sii bishaareeyay in 1960 xorriyadda ay qaadan doonaan hal dal iyo hal dawlad ma jirin dal iyo dawlad la aqoonsan yahay oo la yiraahdo Somaliland 60kiina xorriyaddii ayaa la qaatay dadkuna Soomaalidu waxa xoroobay midnimaduna wax qasab ah bay ahayd ee ma ahayn wax ku yimid dood iyo ma midowna sidaas ayaa lagu aqoonsaday dal la yiraahdo Soomaaliya oo xuduud la leh Djibouti Ethiopia Kenya iyo laba badood qaramada midoobeyna hal kursi ku leh oo xubin ah dhulkaas oo ku siman intii ay xukumaysay dawladdii dhexe ee 1991 dadbatay dawlad dhicii kadib ayay damceen in ay dhulkii Soomaaliya loo aqoonsanaa qayb goostaan iyagoo oo aan dhul kale la iman loona aqoonsado Suusle in badan ayuu ka hadlay qodobkan mana soo koobi karno saadaladiisi waxa ka mid ahaa muuraanka ciidiyaarada kula midnaan weeyay mabda ay sharciga loo dejiyay madaxda loo yeelay haddii aad mucaaradayso waa maado ku furan anigoo mashquul baan ahaa mararka qaarkood si kala wax loo maamiyaa oo loo muujiyay daarood allow mari iyo malaawaalkiin waa waxaan maslaxada ugu helay moralkii jabay lamidee mataano haday ka maqnaayeen mar kale wuxuu leeyahay Abwaan Suusle xuduud beena bay doonayaan inay xariiqaan wixii uurka xaraqiyay baa xaday afkoodii xaaran xashi lagu dhaqiyo xooman niriteedu xalaal bay u kala dhow yihiin xashawaamay xeegada rag baa dheelay iyo xinbarooniga xanooshkii baa daba socday iyo xulufadiisii xoolaha kale laga duwa xayn candhoolaha xubno guraysa uma dhaansan iyo xin dabayla leh xasili maayo geeluba abaar maqaada ah haddaan hadalka soo xooriyo xubin ku miisaan calanka xariirta intuu ku xaragoonayo xidilaha buluuga intuu xulaya laabtay ee ay xidaysana qalbiga xadanta iyo hayso xuub caaro nimankaasi tawxooray taladii mar kale Abwaan Suusle waxa uu leeyahay wiil aan u dhalan bay isaaqwan u bireeyeen ay hooyadii aan walcisi u laqalayaan oo ay warsamahaashin iyo weyd u bixiyeen oo ay walaalaatihiin nagula waasheen anigana walaac ay galay oo ma waafaqin hawiyaha wareera ka dhow heshay doori iyagaaban calankii wacnaa waraq u googoyn intay qaranka waxyeynayaan waardiyaanahay hal wado dagaal waa hor waajib ka ahaayban aragtida waqooyinimadu waxay halis ku tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa aragti gumaysi oo ku qontanta xuduudihiisa xaaraanta ahaa waa kaad ay xoqdaan idoorku iyagoo oo uga faa'iideysanaya dhowr qodob go'aansutaaga xulufaysiga
iyo xodxodashada dhulbahante iyo warsangeli xuduuddii ingiriiska iyo waxyaabihii la halmaala suusle iyo aragtidan waxa uu abwaan suusle yidhi xawxawsiga adigaa barti iyo xoox macaansiga xanjo meelna uma doonta iyo xaabla ii qube xuduudaha dhulkayga oo dhan baan ku xaragoodaay xarar dheere xeebaha qandala xaabo iyo geeso xaafuunta bariga ku taal ee xijigu yaallo xadhadhanka waa imas iyo xaysmo luuqe xabadka iyo laabtaydu waa xarada mudug xadiiqooyin baa igu yaal ximanka hiiraan xariir iyo bustaale ii goglaa xoobay daaraha xulka waamo iyo awdal baan xeer wadaagnahay xudur iyo bakool iyo anaa bay xidhiirsha ah xafiisyada marki iyo jawhar baan layga xaasidin xiis iyo haddaan maydh tagana lay xaduurayni anigoo tan iyo xingalool ku xafladaynay xabsi edega adigaa ku jiro xool cidhiidhiyo ah xanuun laga bogsado waa naqaan iyo cafaarow xangulaha gumaadkii adaa xiiq la yuuraree haddaad tahay xasuuq beri dhiciyo xaaqa nin ilaawo xabaalaha ma aad fadhateen xaysiniin go'ay abwaan suusle aragtida waqooyiga iyo waxa uu ka yidhi sidiisaba aragtida waqooyigu waa magac siyaasadeed oo ku lug leh dagaalka eray bixinta ee halista ah ma jiro harti kala qaybsani harti waa harti xuduudna ma kala leh waxaa loogu dal leeyahay in dhulbahante iyo warsangeli laga dhigo sidig iyo reer yar oo ay doorka la degan kana mid ah dal la yidhaahdo somalilan waa siciddii qaadata aydoloojiyadda aayaheeda dilaysa iyo liidnimadeeda soomaaliya oo dhan bay doorku uga carareen inay ku dhex lumaan reeraha ka badan ee daarood iyo hawiye jaqafkii ay hawyaha ku baryi jireen ee edidaysiga ayay waxba ku waayeen markaas ayay rabaan inay qayb daarood ka mid ah ay ka dhigaan dad yar oo la degan waana kuwa sameeyey erebixinta dagaal ee beesha dhexe iyo beelaha darafyada annaga iyo idoor soomaalinimo unbaa naga dhaxayn lahayd tiina iyaga ayaa diiday markaas waxba ma wadaagno waxaannu ehelnahay oo isku dhownahay ciddii midnimada dalka aaminsan ee soomaalida ah ise iyaga dabka ma kala qaadanayno waxa aan dagaal ahaynina nama dhex yaal suusle iyo aragtidan waxa uu yidhi xukun loo dhan yahay dowladdan xamar la daaweynay xulufaysigii idhir haddaad xaayow ku hongowday xoodaamo daarood ma jiro aad xodxodataay intaad xawaaraha gurracan xawli ku ordayso ee aad xagaaf oodan iyo xananka jiidhayso xabbad iyo dil bay noo ahaan xawda laysjare xudun iyo tareex igawallay ku xasilahayn xaskullayda cayn iyo nugaal waa xarbiyo joog xamil waran waa ku xejinnaa xawl mariid cadow mar kale abwaan suusle waxa uu leeyahay sheekada araari iyo jubbaa shiila madow taal mago ogi shabeelle iyo midii shululux ii roon labaduba iyo laab waa shoolada ifeene shaqiiq iyo walaalaanu nahay shacabka hiiraan shanambood ma kala maaranna iyo shaamow iyo luuq shandaraalka laygama xigi iyo shaaricii xamar dadkaba shaanshi baan u jeclaa iyo shiribkii daa'uudi shantan calanka wada qaadanno shuruuba mooyaane shamaal iyo junuub igalaan kala shaxeexayna sharka cadowgu waa badan yahay shiila taladiina mar kale abwaan suusle waxa uu leeyahay aniguba xidhiidhkiinna go'ay xiise waa u qabay xaababa ma kala qaadanno iyo xaafadaha weel waxaan xarafka diimeed ahayn waan xarrimayaa soomaali weyn oo xoraan xamar la daaweyn yagaan xumaan iyo samaan xeer la gelayaay xabsiga iyo cigaydhiga xamila ay u xiiqinaan abwaan suusle aragtida dabadhilifka in badan buu ka hadlay dadka soortu qaadatay ee cunna raadiska ah falsafad iyo fikir ummadeedna aan shaqo ku lahayn mabda iyo dhuuni isku meel ma geli karaan garaadka iyo gobonimaduna way wada shaqeeyaan halka hunguriga iyo gudnimadu wada shaqeeyaan cali dhuux oo qiraya in qofka qalbigiisu soor u hamuumayo in uusan mabda ku taagnaan karin oo marba jihadii uu dhadhamo ku arko uu u sadcaalayo yahayna hal wad qof isla oo bilaajiye ah waatuu lahaa mar haddaan hiyiga soor ku xidha waan hawanayaa suusle aragtidan waxa uu ka yidhi isxambaarka weydiin xamaal xalaya saabaane xawsaha nin kula fuuda iyo xabadhla mooyaane xilkaskiiyo garboodkaan lahaa xaraf ma eedaan haddaad xabad barshiyo aweel iyo xuka malab hayso waxaan ahay nimaan soor u xilan xeedho geedaleh xaasha lilaahiyo mageeyo xunshalla cunfeene xunboogii indhiyo haymalay xaabsadoo kale sidii habartii xadhxadhato hiib xaraashaysa xamxamaaradkaagii lamood xamila haween dad adigu xaydh daacayso oo xalusu maraarowday xoodaanta iyo weydda waan ku xaragoodaa iyo xoogsiga naftaydaan aqaan ee xalaasha ah nambar 5 xeesha diimaysan diinta aad ayaa la isugu xeelaa oo qofku isaga oo bilmi ku socda xaq cidi leedahayna guudsiinaya ayuu aayado iyo axaadiis fara badan oo xaq ah akhrinaya sidaasna wuxuu nebigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariisu korkiisa ha ahaatee ku sheegay gardarro lagu doonayo waa edebdarro aan la dhegaysan karin suusle iyo aragtidan waxa uu ka yidhi xasharka iyo qiyaamaha markii xaadir la isgeeyo nin waliba xisaabtuu lahaa waa xujo hortaal xaafidulqur'aan ha u macnayn xawdka aakhiro xaamiinadaan ku akhriyey xiiq anaan tiran xaq iyo baadil aan kala aqaan xaaja hay barin xaraf diinna xeesh iyo dantaa haygu duuxulin qodobka 6aad suusle waxa uu ka yidhi waa suusle iyo dhulbahante hadal uma baahna midani wuxuu yidhi abwaan suusle eebbe madaxiisa ha raajiye niman yahow dalkiinnii hallow waanad hurdaani hogay ceebta weydiin hullaab iyo haboogtii teer iyo xagaagii hayaad ku hungulnaydeen hanuun baa hayaydaa guree habar ma riixdaan miyaydaan hambaanbirayn muddaad habaacsanaydeen
hanti maqan ninkii laga hayaa waa hibayn jiray ama hawlgal iyo weerar buu ku hindisooday midna kuma hagaagtaane waad heela murantaan ama hura naftani way hadhaa oo hayse lagu waayay ama haniya dhaha sool rag baad uga huleesheen intaas haynoo joogto waxaan ahay yuusuf sacradid yuusuf oo idin akhrinayay maqaalkii uu qoray aqoon-yahan nuur u leeyahay inta maqaal caynkan oo kale ah dib ugu kulmi doono nabadgelyo